qofku xilliga afarka kale uu ku afbilaabo timir waan badnayn oo saddexdo xaba kadibna markuu salaada soo dukado oo maqribku soo laabto inuu isku qaato afarkii iyo cashadii isku qaato waxa kale oo soo jeediyaa oo muhiim ah waxa la doonayaa qofku inuu cabiro 2 saac meelaas markii la gaaro markii uu qaatay cuntadii xilligii cashadii uu isku cunay iyo afarkii markuu isku baxshay in uu iska cabiro 2 saac iyo wixii ka dambeeya kadibna uu dhakhtarkiisa kale la wadaago ama haddii loo tababaro kale qofkii oo markaas wixii mataqaan oo sameey karo daawooyinkii wixii loogu talagalay oo qaato waxa muhiim ah qofku markuu sokor qabo cuntada uu cunayo inay ahaato cunto isku dheelitiran cunto ka kooban biyo cunto ka kooban waxyaabo mataqaan ay sheegeen waxyaabaha qofka afkiisa qoyaan ku reeba sida qudaarta kale hadduu isticmaali karo heli karo waxa la yiraahdo qamadiga oo kale salbukada oo kale waxa jira rootiyal ka kooban qamadiga wax noocaas ah oo diyaarsada sokorta qabo loogu talagalay inuu ka fogaado inta badan baastada iyo bariiska inkastoo la sheego in baastadu ay ka roon tahay bariiska marka loo fiirsho sokorta xaggeeda waxa kale muhiim ah in xilligaas afurka ilaa u dhaxayda suxuurta qofku oo 2 saac uu isticmaalo biyo xilliga dambe oo qofku jiif gaari doono 6 saac ka horeeyo kala 5 saac kulli uu soo jooji doono laakiin waxa la sheegaa in qofku 2 gaas oo biyo oo muhiim ah inuu isticmaalo ilaa suxuurta laga gaaro yani joogto ku celcelisaa loo jeedaa 2 gaas biyaha ka fogaata waxyaalaha shiilan khatar bay ku geli karaan waxa laga yaabaa inay sokortaadii iyo gaas iyo waxaan loo joogin ee guriyaan laga yaabaa marka hilib dad isticmaalay hilib aan biyo caadi lagu kariyo oo shiilan inay isticmaashaa inta badan soo jeediya kadibna saxankii uu noqdo sax isku dheelitiran oo dhanna qudaar ka saaran tahay dhanna hilib mataqaanaa yani biyo lagu soo karkariyo ka saaran yahay dhanna wixii yarkaa karbohaydraytka aad badnayn ay ka saaran tahay haddaad ka badbaadi karto salbako kale iska isticmaali kartaan ay qamadiina iyadoo okay waa xilliga suxuurta waxa la doonayaa qofku inuu xilli dambe suxuurto oo xilliga sidii sunnadu ay ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay oo in suxuurta la dibdhigo kale in suxuurta qofku iska dibdhigo oo adinka u dambeeyo kalaba waqtiga geeyo kuna suxuurto wax mataqaan soo sheegno kale cuntooyin isku dheelitiran sida qudaartii iyo caano oo kale waxa mataqaana afa ku reeb qoyaanka sida timirtii oo kale inuu isku qaato kale hadduu isticmaali karo salbukada kale okay waaye haddii uu isticmaali karo waxyaabooyinkan qamadiga oo kale wax lamid ah iyadana okay waaye caanaha iyo timirtan aad loo jecel yahay iyaguna mataqaan loo soo jeediyaa in aad u fiican qofka sokorta qaba si caadi ah qofku sokorta qaba sokorta guud ahaan uu ka fogaanaya dhammaan sokorta wax kasta nooc ay leedahay uu ka fogaanaya haddii kale threshold kaliya qofka ku badanaya sokor badan mataqaan waxay sameynaysaa sokortada badan inay biyo tira badan jir ku jiray inta soo saarto banaanka turto taasina waa qalqal bay keeni kartaa hadhow qofkii kaadi badan inuu yeesho kadibna uu fuubax u dhawaado qofkii dehydration uu soomi waayo waxa kale muhiim ah in qofku uu haddii ay noqoto maalintii oo kale sokor qabo kale in kuleelka tirada badan ee raaxda inuu la kulmo kale uu iska wardiyo oo dee kulma nasiibka qofku mataqaana sidee taa laakiin inuu ku dadaalo insha Allah taala